hargeysana ha laga tunto burcana tigaa heesaha ka dhigaysato sharciga dhigaya waxay barlama ku yaala marka waxaan leeyahay fanaaniinta kalena deera burco wali sidii xumo qulbaanay danoo kaalkaale iyo shooyo waxaan ku idhaa iyo alaabtash kale noo qabta tasbiilaan baa soo shaqtay $10 baa leeyahay $10 herkii bariis kuma casaysanayeen ma Soomaad garan warano ku fan ma naqaano marka laga hadlay burco wixii la qulbiyo wixii la laynay taqaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh nabada wadayaal meel kasta dunida iyo daafaha caalamka aad ka joogtaan ku soo dhawaada barteena YouTube-ka ee Hacks Burco Channel barnaamijka su'aalaadka caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa aragtida bulshada gobolka Togdheer ay ka qabto in bandhig faneedyada magaalada Burco loo fasaxo waan ku soo dhaweynayaa magacaaga marka hore magacayga Mukhtaar waxaan ku weydiinayaa walaal xalay talo habeenkii ciida bandhig faneed ba ka dhacay magaalada sadoo aragtaanadu walaal waa arrin qaldan horta bandhig faneed horta waxa weeye waa dad xumaan ku soo kordhinaya faasiqnimo magaalada markaas waxa wanaagsan in waxa soo kale laga waantoobo wax wanaagsan de farxad baa lagu ciiday lagu ma ciido xumaan iyo waxa soo kale lagu ma soo dhaweeyo aragtaadu waa aad baad maas oo soo dhaweynaya magacaygu waa maxamed axmed abdullaahi maxamedow muddo 8 sano ka bacdi ama 7 sano ka bacdi xalay toole magaalada Burco show baa ka dhacay sadoo aragtaadu waxaan u arkaa showga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama gobolkii Baqladii dib loogu furay markii hore dhalinyaradu aad bay garanaysaa markii hore dhalinyaradu aad bay garanaysaa Baqladu aad bay ugu dhinay balse imika aad baa lagu furay aad baan ugu faraxsanahay 100% waan ku soo dhaweynayaa magacaaga Sikriyo xalay toole bandhig faneed magaalada lagu qabto sadoo aragtaadu warwa caadi in lagu qabtay waliba ma garanaysaa fanaanad socdaal baa soo socda Furo imanaya marka showgaas ka qayb galnaa waliba kaasa la raacinayaa marka adigu aad ku faraxsantahay ma waan ku faraxsanahay aad baad maas ku soo dhaweynayaa magacaaga waa Khadar Maxamed Jaa Khadarow muddo 8 sano ama ilaa 7 sano ka bacdi xalay tolo show baa ka dhacay magaalada Burco sadoo aragtidaada sheygu aanu ka soo horjeedaa shariicada iyo diin islaamnimo ma wacna marka gobolka noo gobol diineed marka ay noo wacna sideedaba Shawyada iyo waxyaabahaas anu waxaan taageersanahay maayirka horeyna muraad marka waan ka soo horjeedaa in Shawyada la furo waxaan nahay gobol diineed baan nahay culimada Soomaalida ugu waaweyn baa gobolkan ka soo jeeda marka inoo ma wacna inaga adan nahay magaraysaa gobolka Togdheer aad baad mahadsantahay oo soo dhaweynaya magacaaga Abdirashiidow 8 sano ka bacdi Burco xalay tolo show baa ka qabsoomay sadoo aragtidaada showgaas de anagu noo wacay khaasatan ma fahant magaalada deeyn badan bay damhayd marka in la soo dhiso la baqlayo ma ka dhinayd marka si fiican baan aragnaa aad baad mahadsantahay waan ku soo dhaweynayaa walaal marka hore magacaaga walaal Nimco la yiraahdaa Nimcoy 7 sano ka bacdi xalay show baa ka dhacay magaalada Burco sadoo aragtaadu waxaan warka jawiyo farxad marka ma dhalinyarada soo dhaweynaysa ku jirtaa mise kuwa ka soo horjeeda ma dhalinyarada soo dhaweynaysa sababtuna waxyaabo badan oo soo dhaweynaya walaal magacaaga walaal Axmed Ismaan laha Axmedow muddo 8 sano ka bacdi show baa xalay ka qabsoomay magaalada Burco aragti ahaan sadoo aragtaa wallahi niyow aragtaan waxaan u arkaa inay fiicantay way oo Burco marka hore cawbi ku wada fidday si laakiin ku balaarata ma garanaysaa marka waxaan leeyahay fanaaniinta kalena deera Burco wali sidii xumo qulbaanay danoo kaalkaale iyo shooyo waxaan ku idhaa iyo alaabtash kale noo qabta gowdhe Burco way balaartay waan dalay Burco cawdi ku wada fadhido ka kacday marka noo kaalaya oo soo dhaweynaya magacaaga Cabdiqani 7 sano ka bacdi bandhig faneed baa xalay lagu qabtay magaalada Burco aragti ahaan sadoo aragtaa wallahi aragti ahaayda wax aad iyo aad u xun weey waxaan leeyahay ninkii inuu muraade rag uu saago baqan jirayna ninka uu nool yahay wali waanu shaqeynaya gobolkana oday buu ka yahay marka guddidu wanaag fariisan waxaan leeyahay ha shaqeyso aadkaysan aad ku soo dhaweynaya magacaaga walaal Xamdaay 7 sano ka bacdi show baa xalay ka dhacay magaalada Burco sadoo aragtaadu aragtidaada si farxad leh walaal si farxad leh ayadoo aragtaa marka waad soo dhaweynaysaa sababta soo dhaweynaya magacaaga والله magacaygu Cabdinajiib Qiso la dhahaa Cabdinajiib Qiso way xal ugu bixinay Qiso muujiyo iska qisay ku dhacdo way 7 sano ka bacdi xalay show baa ka dhacay magaalada sadoo aragtaadu wallahi way soo dhaweynay showganiyo soo diinta khilaafsan yahay laakiin gobolka horumar buu keenay wallahi marka fanaaniin badan ma ku soo hirinay gobolka Hibaadaan marka horumar gobolka u rajeynaya khayr marka waad soo dhaweynaysaa sababta u soo dhaweynaysaa maxay tahay sababta u soo dhaweynay waxa weyn Burco oo dambaysa magaalada kale fanku ka horumaray hargeyso kale maanta
horumar ma gaadhay magaranaysaa waa wax daarad magaranaysaa fankuna waa wax bulshada ka dhaxeeya marka fanaaniin badan ma adan u rajinay Burco ay fankeedu horumaro aad baad mahadsan meeshii ugu horeysay fanka laga dhawaaqo fanaaniintii badan iska yaacay hargeysa wareegay markay fanka waayeen marka waxaan jeclaan lahaa fanaaniin dib ugu soo noqdaan Burco fankuna horumaro aad baad mahadsan aad iyo aad mahadsan mubaarak bala mubaaragow 7 sano ka bacdi show baa xalay ka dhacay magaalada adigu saad u aragtaa ne walaal hortiin show ka dhaco fiicanta laakiin dadka baahiyadooda laga qorxba dad bilaadeen baa soo shaqatay $10 baa leeyahay $10 heerkii bariis kuma cassanayeen ma sumaad garan warano fan ma naqaano marka laga hadlay Furo wixii la qulbiyo wixii la laynay taqaana kowde simsim sharaf iyo digeeda waxaan horta soo lugooday $10 xalayna tan showga cidba ma camirinba inta asaska yar balaasun baa xaraatay kowde magaalo cid kale ma xaran sumaad garan anagu jaqafteeda baadiyada iska galina sumaad garan Allah akbar umbalna waxa kuma jirnaano aad baad taagmahayn aad baad oo soo dhaweynaya magacaaga Abdurrahman Maxamed Ibrahim Abdurrahman oo 7 sano ka bacdi xalay show lagu qabtay magaalada Burco habeenkii ciida saad u aragtaa waan soo dhaweynaa showga waxaan leenahay gobolkii aqoon-yahaninta marka showyada waa loo baahan yahay in la dhigo waxaan leenahay yaan lagu dheeraan laakiin lagu yaraado sabab ahaan markaad sababayso sababeyno dhalinyarada waa imika dhalinyarada dambe weeyaan shumjamba magaalada ku badan marka showyadan la iska bastaa way fiicanta aad baad salaamina oo soo dhaweynaya marka magacaaga ayaan maxay dib loo dhawaayay ayaan 8 sano ka bacdi ilaa 7 sano ka bacdi bandhig faneed baa lagu qabtay magaalada Burco saad u aragtaa sax horta showyadan la qabanay magaalada Burco hortaanu raayanteedu ka soo horjeedaniyo magaaladeenu ma ahayn magaalo waxa laga yaqaano magaalo ku caana magaaladii lagu yaqaan inay shooyiyo qabsato siyaaxa waan ka soo horjeedaa hortaanu raayahantayda magaaladan waxaan leeyahay maayarkeedu hore way u darsatay niyow ina muraad annagu aad baanu mar labaad iyo mar saddexaad aanu leenahay soo noqo ina muraad waxaan leeyahay dib soo noqo annaga ku dooreene oo soo dhaweynaya marka magacaaga wandhow walaal daahir baa daahirow 7 sano ilaa 8 sano ka bacdi xalay tolo show baa ka dhacay magaalada adigu aragtida saad u aragtaa noo aragtidayda anigu soo dhaweynaya sababtoo ah de Burco gobolada kale marka la barbar dhigo caasimadda laada Soomaaliland baa lagu tiriyaa Hargeysana laga tunto Burcana tiga heesaha ka dhigaysato sharciga dhigaya waxay farlama ku yaala marka anigu soo dhaweynaya aniga soo dhaweynaysa thanks aad baad mahad oo soo dhaweynaya magacaaga aad iyo aad dhaweey maxamed cadaro xalay tolo 7 sano ka bacdi ilaa 8 sano ka bacdi show baa ka qabtay magaalada Burco aragtida saad u aragtaa waan soo dhaweynaa aad iyo aad waliba kuwan iyo qaar badan oo kaleba gobolku horumaray markuu u talaabsado waxaan doonaynaa inta yanka badan been imika aan ku qabno showyo qaar badan insha Allah way soo socdaan oo soo dhaweynaya walaal magacaaga waa Sharmaarka walaal Sharmaarka 8 sano ka bacdi ama 7 sano ka bacdi xalay tolo show baa ka dhacay magaalada Burco saad u aragtaa adigu aragtaada wallahi showga ka dhacay horta in badan baan doonay inuu Burco ka dhaco waan soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay maadaama aan dhalinyarada gobolka Togdheer ku faraxsanahay aad baad u mahadsantahay daawadayaasheeda qiimaha qadarinta iyo qaayaha mudan intaas waxa ku soo dhamaaday aragtidii bulshada gobolka Togdheer ee ku aadanayd bandhig faneedyada magaalada Burco in loo fasaxo iyo in kale bartaad nagala socotaan waa bartana YouTube-ka Burco channel nagu soo biiro subscribe saar video-gana like saar share gare aad iyo aad baad u mahadsantahay